حافظ القرآن يا حافظ القرآن سفراء الذكر يا أبناءنا يا حافظين للهدى سيروا وكونوا قدوة للعالمين. munaasabadan oo ahayd mid si heersare loo soo agaasimay waxaa ku qalin jebinayay dufcaddii labaad ee arday dhammaysatay barashada qur-aanka kariimka iyo dufcaddii afaraad arday dhammaysatay barashada hingaada carabiga waxaana lagu qabtay faraca saddexaad ee macadka daaru tacliim oo ku yaala xaafadda Sona Key degmada Hodan ee gobolka Banaadir. xafladan waxaa ka soo qayb galay culimo, aqoon-yahano, waalidiin iyo marti sharaf kale oo xafladda lagu casuumay. munaasabadaas ugu horeyn waxaa ka hadlay Sheekh Cali Axmed Maxamed Kadiye oo loo yaqaano Sheekh Cali Alfiye oo ah aasaasaha madrasadaas. Sheekh Cali Alfiye ayaa ka warbixiyay ujeedka munaasabadaas maanta loo qabtay. dhinaca kalena waxa uu sheegay inay tahay wax aad loo ammaanay in la qabto xaflado lagu dabaaldegayo arday dhammaysatay qur-aanka. in marka sidaan oo kale xaflatu takharuj la sameeyo qur-aanka loo dabaaldego waa wax soo jireena wax cusub ma aha. waxaa la sheegaa saxaabigii Cumar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu suuratul baqara ayuu mudabbaranahay markii uu dhameeyay macnaha iyo waxa weeye alfaadiiba uu xafiday xaflad ayuu qabtay yoomul farax ayay u ahayd neef geel ayuu qalay. marka in la qabto quraanka marka la dhameeyo xaflad la qabto hadii mararka qaar uu jaanis ku saamaxayo waxa weeye qofka uu farxad iyo xoolo la bixiyo sadaqa la bixiyo waa wax soo jireena oo saraf laga soo gaaray. Sheekh Axmed Cabdi Kaahiye oo kamid ah culimada Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho oo isna munaasabadaas ka hadlay ayaa ammaan iyo bogaadin waxa uu jeediyay maamulka iyo macallimiinta macadka daaru tacliim waxaana uu ugu baaqay inay si laba jibaaraan hawshaas culus ay u hayaan bulshada. Allahu khayral jazaa wa amaanta meesha u sarreystaa nabiga cali salaatu wasalaam qofada u duceen samaanaysid inaa tira jazaakumullahu khayral jazaa waxaan leenahay waalidkii anagoo dhan jazaakumullahu khayral jazaa macallimiinta iyo ragga dadaalaya iyo maamulka iyo culimada dhan ilaahay helo ku amaal mariyo khayr midka u jazaa u khayr badan marka meesha nicmadan ilaahay aan ku shukrunaysi ilaahay noogu siyaadiyo hawshana ha sii socoto dadkana ka faa'iideysteen. xafladda intii ay socotay ardayda ayaa soo bandhigay bandhigyo kala duwan oo ah waxyaabihii ay barteen. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. macadka daaru tacliim ayaa ka mid ah macaahidda ku yaala magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya oo bara dhalaanka Soomaaliyeed qaybaha cilmiga iyo maadiga. waxaana madrasadan dhidibada u taagay sheekh caalimka ah ee Sheekh Cali Alfiye. يا حافظ القرآن سفراء الذكر يا أبناءنا يا حافظين للهدى سيروا وكونوا قدوة للعالمين. حسن محمد سمتر عوكي شبكة عالمية المتحابون في الله شو وكونوا قدوة للعالمين. سفراء الذكر يا أبناءنا يا حافظين للهدى سيروا وكونوا قدوة للعالمين.